هذا وقتهم وحانا وقحي إن بدن والأوي الهيدن إن بدن إن يرنا والقصر الهيدن على أود إذن مقن إلا إذن لد معسن يحي يشرق الله إذن دقي إساق يمتشرتين إذن دقي هذا وقتهم ما إذن قوستين أو عرور وما أيضا بشين نرشا إذن كدحران وحوي وحكو عاية دقالك قلا أنا نبدأ قلبان له دبيدا دغال ee meesha ka dhacay Muuse iyo codkiisu ay wadaan in xukuumadda Soomaaliya ay hortaagan tahay inay garab ku siiyayso marka si kala loo dhigo saaro ku dhawaaqay ka waran oo maamul baan sameeyay aynaba u sameeyay tii suura galmaha hakaalmaynina kala go'a Soomaaliya hakaalmaynina kuwa kii bilaadii mashaakil aan buufinayno waa dhab diyaarna waa lagu yahay maanta waa in uu si mugli arinta موشن وقتنا موشن ذكره وبلان نحنه قصة على البرلمان كواركي هذا سومالي كنا كونفورت سوماليا يبلها الدجان كونفور وحكم ما جايا كنا دجاليا ومحاد قيب ونقوي سين دجال كسر الله سعنود سيدا وجه دنا هذا وضبقي وضبك وكعي لما أنتي سو شوف بالي سيدا هذا كارك تنشا شدا وحلا يقبض بعد وكلية إني سن ضبكاسو جارين هريرها guriyihii ka xigay laakiin dabaqii iyo hantidii taalay dhammaan hal shay oo ka badbaaday hab yaraatee ma jiro waxa la oran karaa laasacanood ayaa ka dabdamis fiicneed intii laasacanood intaan hadda musiibadan ku habsan ayaa dabdamis ahaan ka taya fiicneedba masaakiintaasi halkaas ku dayacan afar xabood dabdamisa ugu deeq dawladdiinii baa ka shaqaynaysa na dulbinaysa garab siinaysa kala go'ay ummadda Soomaaliyeed annaka nooma taale ciidankay u taala raga ka fadhida baalka maxaa BM kuraasay u taala kaas kuwaas hadii afkooda ay suuq laga yiraahdo wala buufinaya saaxiib yaal soo dhawaada muuqaalkana hala fogeeyo soo meel fog gaar qodbadii mastargala dagaalka waxaan filayaa intiina badan inaad aragteen oo aadna dhuuxdeen hadalkiisa markii laga hadlo muhiimadda hadalkiisa xalay wuxuu u muuqday rafashadii ugu dambeysay hiidka ayaa gaaray dagaalkii dhan kasta garaadkaasi waa lagu guuleystay isaga iyo intii isaga soo adeegsanaysaba haddii ahaan lahayd dagaalkii beesha caalamka iyo dagaalkii gooja cadaya laasacnood iyo dagaalkii koonfurta Soomaaliya hadda albaab kasta garaadkaasi iyo huwantii kusoo duushay laasacnoodii Soomaaliya markaani waxay u muuqdaan in gabalkooda uu dhacay markii la eegana hadalkiisan mastargala dagaalka wuxuu u muuqdaa inay soo afjarantay beentii iyo faankii ay ku hayeen muddadii 6 bilood ee laasacnood Soomaaliland ayaa cuno qabateen la saaraya madaxdeeda Muuse Biixi ayaa lagu soo oogaya dambiyo dagaal laasacnood waxaa ka dhacay gabood fallo beesha caalamka hadadhay iyo wax la mid ah marka hadda waxay muuqataa in waxaasi oo dhan ay soo dhamaadeen ayna ku soo koobantay garaadkan iyo intii isaga xulfada la ahayd saan ognahay Soomaaliland ciidankeeda muddadaasi 6 bilood ahayd waxay ku sugnaayeen laasacnood xitaa iyadoo awooda inay laasacnood xoog ka saarto huwantan iyo kuwan hadda laasacnood ka dagaalamaya ayay haddana waxa ay indhaha ka fiirsanaysay waxa ka socda laasacnood waayo halkaasi Soomaaliland ciidankeeda waxay ka arkeen dad iska baroranaya cid dishana aysan aqoon dad 24 saacadood social media ka cabaadaya ka hanjabaya ka baroranaya cid dishay cid mahagtana aan la aqoon marka arkaan ciidanka Soomaaliland ayay indhaha un ka eegteen waqtigaasna ciidanka Soomaaliland waxay laasacnood ay ku arkayeen beesha caalamka iyo Soomaalida kale ee ka maqan laasacnoodna aysan la socon maanta ayay banaanka timid waxay horey u arkeen ciidanka Soomaaliland ayaa maanta Soomaali oo dhan iyo beesha caalamkaba ay indhahooda ay ku arkeen maantana garaadkan mastargala dagaalka wuxuu la soo baxay wajigiisii saxda ahaa ee munaafiqnimada ay ku duugneed ila daawada muuqaalkiisa iyo codkiisa waliba baarlamaanka Soomaaliya موشن وقتنا موشن مدحوينها iyo ra'iisul wasaaraha waxa cad oo aan gabashalahay inay si hoose ula shaqeynayaan xukuumadda Soomaaliland ee dadka Soomaaliyeed badaaficda maalin walba la dhacaysa inay hortaagan yihiin cudurqabatayntii la saari lahaa arinta Soomaali waan u sheegaynaa qarin mayno dawladdiinii baa ka shaqeynaysa
na dulminaysa garab siinaysa kala go'i ummadda Soomaaliyeed haddaynu ku raacsan nahayna aynu gacmaha u taagno haddaynu diidan nahayna mowqifkeenna aynu caddayno weliba baarlamaanka Soomaaliya ee batalaya ummadda Soomaaliyeed waa in uu si mugle arrintaa mooshin uga keenaa mooshinno kale oo bilaamicno ka socda baarlamaanka waa arkayay tan dhabta ah ee ilaahay kula xisaabtamayo waa dadka Soomaaliyeed ee la dulminayo ee xukuumaddii jirtay ay qaybta ka tahay dulmintaas odagii yarka ahaa mastargala dagaalka xaaladda laasacnood iyo siyaasadihii ka jiray koonfurta iyo tii Somaliland odagii jam ayuu ku noqday jam wuxuu ku hadlayay wax kale ma kala yaqaanba ninkan cid la talisa ma laha ninkan cid la talisa oo tiraahdo meel iska fariiso ma jirto miyaa wuxuu ku wareeray siyaasad uusan isaga aqoon iyo cilmi iyo haybad uusan u lahayn ayuu ku dhex wareeray waxa u fiicnayd ba inuu ku ekaado oo kaliya garaadkiisa iyo garta beesha dhexdeeda ah laakiin markii uu faraha la galay siyaasadaha isaga ka waaweyn ceebtan oo kale ayaa ka imaanaysa hadda ninkan markii si loo eego waxa ka muuqata fudeedkii lagu yaqaanay reerka iyo fudeedkii lagu yaqaanay farmaajo markii si loo eego markii si la yiraahdana waxa ka dhaxalaya hadda farmaajo ayaa ka dhaxalaya qofkii isha u dhuuba oo aad isha u raacana ficilada lagu yaqaanay farmaajo iyo hadalkii Soomaalida lagu beer la xusin jiray wadaniyad iyo qabka Soomaaliya iyo waxaas iyo ayaa ninkan hadda laga dareemaya waana siyaasadii iyo wixii lagu yaqaanay farmaajihii dadka shacabka ku leen jiray Muqdisho iyo gobolada Soomaaliya hadda garaadkani wuxuu dhagax tuurayaa baarlamaanka Soomaaliya iyo xukuumadda hadda jirta wuxuu leeyahay waa in mooshin laga keenaa waa in saas la yeelaa waa in xilka laga qaada isaga tiisa dayacan be maxaa u geenaya federaal iyo koonfur iyo mooshin iyo maxaa u geenaya tan kale wuxuu leeyahay beesha caalamka halkii ay cunaqabatina ka saari lahayd Somaliland waxa ka hortaagan Soomaaliya isaga shaqadaasi yaa u dirsaday mid isweydin mudan tan kale shaqadan kale ee midnimada isaga yaa u dirsaday midnimo hadii la yiraahdo Soomaaliya 60kii waxa markii ugu horeysay xurmo qaadatay Somaliland ay ahayd waxana ku xigtay waa koonfurta Soomaaliya markaasna waxay ahayd Somaliland British iyo Somaliland Italy isaga marka waa oday dhaqameed maxaa siyaasadan iyo goosad iyo isaga maxaa galiyay waa bad kale isagana shaqadiisa aan ahayn midda kale dagaalkan hadda ka socda laasacnad wuxuu ku eedeynaya Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu leeyahay dagaalkaasi Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu la safan yahay Somaliland Xasan Sheekh Maxamuud markii runtii laga hadlayo isaga ayuu ahaa shalay isagoo aan dagaal dhicin ninkii lahaa halkaad bari xabalaha dusheeda aad ku heshiin lahaydeen dadka inta aysan hadda la'aan hala badbaadiyo miiska wada hadalkana hala tago ninkii diidana isaga ayuu ahaa ninkii xabadda ugu horeysay ee ka dhacday laasacnoodna ka riday isaga ayuu ahaa ninkii ku faanayay hiil harti iyo aldaaroodiya isaga ayuu ahaa maantana isaga ayaa cabanaya hadalkii markaasi Xasan Maxamuud bishii February ama Febraayo uu jeediyay sidaan ayuu ahaa ila dhageysta codkiisa Xasan Maxamuud laakiin walaalayaal xalku marna kuma imaanayo qori inaan boqolaal ama kumanaan qof intaan dilno kadib korkooda hadhow aan isku gacan salaano oo aan nabadan aan ka dhalinay aan dhahno xabadka isku saarno waa laga rooyaa balaayada bootin bakayle ayay leedahay hala joojiyo intaan faraha ka bixin berri inaan xabadka is saarno inaan hubo in la heshiinayo yaanan meydadkeena iyo xabaalaha dushooda yaanan ku heshiinin dadku intay nool yihiin aan heshiino hala joojiyo waxa jirtay hadal ahaa maanta qofii garawaya waxa taagan bari waxa soo socda ma garto maanta waxa taagan taladii xumeed ee garaadkii masargala dagaalka taladaasna ay ku dhamaadeen dhalin fara badan oo shalay noolaa maanta muxuu ka hayaa isaga ayaa dhalintaasi ka keenay deegaano kala duwan oo ay Soomaalidu degto maantana waa naga hooseeyaan muxuu ka faa'iiday waa taladiisii xumeed maaha marka inuu maantana uu ku eedeeyo cid kale shalay wuxuu lahaa haddaan qaldannahay Soomaaliyeey iyo xukuumadda ka jirta Soomaaliya haddaan qaldannahay han loo sheego hal yiraahdo waa qaldantihiin Somaliland waad ka qaldantihiin maantana markii runta loo sheegay oo la yiri waad qaldantihiin ayuu hadalkan ku hadlayaa
boor isku qaris. ninkan waa mastargala dagaalka nin wax ku fahma ma ahan baryo iyo wanaag iyo nabad iyo xal iyo sidaan yeeliyo nin wax ku fahma ma ahan kaliya wuxuu wax ku fahmaa waa in xabad afka laga geliyo. laasacanoodna waxa uu haraya huwanta iyo Somaliland midkii awood bata ayaa laasacanood u haraya ilaa xal kale ma jirto. waxaan ogeyn shalay inuu xal ka diiday beesha caalamka. waxaan ognahay in Somaliland uu xal ka diiday. waxaan ognahay in Djibouti iyo Ethiopia uu xal ka diiday. maantana ugu dambeysana xamar iyo xashiq maxamuud ayuu sidan ula hadlaya. marka xalka kale laga sugayo garaadkan aan ahayn in xabad afka laga geliyo muxuu yahay. ilaa nabadina wuu diiday, dadkii laasacanoodna wuu dhameeyay, magaaladiina wuu burburiyay, magaaladiina wuxuu ka dhigay goob fasiqi ayuu ka dhigay sida ku aragteen ba social media. hadda ninkan waa mastargala dagaalka shartiisa Soomaali alaha dhaafiyo. Soomaali meel walba ay joogto ninkan wuxuu ku yahay cadow. hadda Soomaalida ku nool koonfurta Soomaaliya iyo beelaha degan koonfur wuxuu ku maagayaa kuna dagaalayaa waa maxaad qayb ugu noqon weyseen dagaalka ka socda laasacanood. Somalilandna dagaalka aad ula gali weyseen. intaas ayuu ku maagayaa koonfur iyo xashiq maxamuud iyo hawiye. durbaanka shalay uu timay colaada ahayd oo beelaha harti uu soo keen laasacanood dagaalkana uu galiyay halkaasna ay ku dhamaadeen dad fara badan. intuu kuwaasi ka soo jeestay ayuu haddana wuxuu damacay in beelihii kale deganaa koonfur inuu dagaalku u soo geliyo qaybna uga dhigo dagaal had ku socda laasacanood. midaas markii ay u suurto gali weysay waa kan hadda shiidka iyo dhagax tuurka ku bilaabay baarlamaanka iyo federaalka iyo koonfur qabaa'ilada degan. birina waxaad arki doontaan isagoo kuwa kale darfaha haysta. waxaan arkaynay baraha bulshada aad ka arkayseen muuqaalo isagoo markaasna beelaha degan ama maamulkaasi Puntland iyo Somaliland isagoo hadallo qalafsan social media u marnayo. waa kan hadalkaasi ninkan isaga cid uu waji u ka leeyahay habeeraatee ma jirto. isaga Soomaali isaga waa u cadow. sidaan uu hadda isaga hadlay ayaa daacad ka ah. haddaad ogtihiin waxaan ogahay in badanna waad ooyi lahaydeen in yarna waad qosli lahaydeen. cadaawadda idiin maqan ee la idinla damacsan yahay iyo shirqoollada la idiin dhigay ee isaaq iyo majeerteen idiin dhigeen haddaad og tihiin maydan guursateen oo carruur uma aydaan dhasheen noloshaa inaad idinka dhaxlaan. haddana intaas ugu imaado wararka laasacanood iyo warkii hadalkii khudbadii garaadkii mastargala dagaalka xalay boosaaso seeqdi dhexe abaaro 3 habeenimo meherad ku taala boosaaso waxaa ka kacay dab. waliba adiga warar kalena waxaa soo baxaya in halkaasi la qarxiyay laakiin meheradaasi dab ayaa ka dhashay markii dambe. dabkaasi intii hantidooda ku weysay allaha badal qeyr qaba ha siiyo. laakiin waxaan ka hadlayaa waa dayaca maamul xumo ee ka jirta boosaaso iyo maamulkaasi Puntland. waxay awoodi kari waayeen xitaa in ay 4 dabdamis ay u sameeyaan magaaladaasi. canshuurta dakhli fara badan ay ka helaan magaaladaasi. waxay awoodi kari waayeen xitaa xalay markii dabkaasi uu ka kacay meheradaasi ganacsi fooqaasi. waa kan hadda muuqaalkiisa aan itusi rabo. xitaa waxay awoodi kari waayeen xitaa dabdamisyo dabkaasi lagu baqtay inay keenaan. xalay halkan qasaaraha intaan waa laga yareyn karay haddii dabdamis halkaasi imaan lahaa oo tayadiisu ay fiican tahay. halkaasi markii la waayay dabdamis ay leedahay dowladda ayaa dabdamis bareefad ah oo shirkadda isgaarsiinta Golis ay leedahay halkaas waxay geysay hal dabdamis oo iyadu ay leedahay. markii dabkaasi ay xakameyn kari weysay xitaa markii dambe waxa la keenay dabdamis yaalay airportka ayaa dabkaasi yaa Allah iyo ayaa dabkaasi lagu dambiyo. waxa la oran karaa laasacanood ayaa ka dabdamis fiicneed intii laasacanood intaan hadda musiibadan ku habsan ayaa dabdamis ahaan ka taya fiicneed ba. laasacanood waxaan u maleynayaa qiyaasteedii adiga waxa taalay laasacanood ugu yaraan 6 dabdamis oo tayadiisu ay fiican tahay. halka kuwaana boosaasana meesha kaliya ay Puntland lacagta ka heshay ay tahay dakhliga hal dabdamis xitaa loo waayay. marka waxaas lagu sheegayaa maamul iyo nidaam inay yihiin. hargeysa waxaan oran lahaaba masaakiintaasi halkaas ku dayacan 4 xabood dabdamisa ugu deeq si islaamnimo ah u sii dabkaasi iyo musiibadaasi bari ka maalin marka ay u timaado si ay isaga baqtiyaan. idinkana waxaad ka helaysaan ajar ileen ayagu meesha waxa ku mahayaane